saraakiishan soo goostay iyo ciidamada la socda oo uu hogaaminayo taliya ku-xigeenkii ciidanka asluubta maamulka Hargeysa ee gobolka Sool Faarax Maxamed Warsame waxaa xarunta ciidanka asluubta dawladda Puntland ee magaalada Garowe ku soo dhaweeyay taliya ku-xigeenka ciidanka asluubta dawladda Puntland iyo saraakiil kale. taliyahan hogaaminayay ciidamadan soo goostay iyo saraakiisha kale ee la socda oo warbaahinta la hadlay waxa ay ka warbixiyeen sababaha ku dhaliyay inay isaga soo tagaan ka hoos shaqeynta maamulkaasi, waxayna tilmaameen inay aqbali waayeen dhibaatada joogtada ah ee lagu hayo shacabka ku nool gobolka Sool iyo deegaanada kale ee gacanta ugu jira maamulkaasi. oo halka jooga waxaanu ku soo biiray gobolada dawladda walaalaha nahay ee dawladda Puntland sida daradeed baan u nimi hatta aanu kala qaybgelinayna halka xoreynta gobolada Sool iyo Sanaag waxaan kala ku sheegayaa dadkii dhalinyarada lagu leeyahay la jiiday buutada ku tashada ku farxa si degdeg waan ka qoran doonaa cadawga wax ka jiidaya gabdhaha lagu leeyahay si degdeg waan ka qoran doonaa ku tashada sida ku bushaysta Indile Abdullahi Faarax Maxamed Warsame oo ka tirsanaa ciidamada asluubta gobolka Sool waxaan uga soo baxay oo u dulqaadan waayay xumaantii iyo farxumada iyo dilka lagu dhaqmayo shacabka reer Sool. markaa kadib waxaan u soo goostay ciidanka Puntland oo ka xoreynaya ciidamada jagaanta gobolka Sool, kuwaas oo aanu la garab taagnay aanu kala xoreyno aanu dalkayga ka xoreysano. taliya ku-xigeenka ciidanka asluubta dawladda Puntland General Cabdullaahi Cismaan oo si weyn u soo dhaweeyay saraakiishan ayaa sheegay inay dawladda Puntland soo dhaweynayso cid walba oo isaga soo tagta maamulka taagta daran ee Somaliland, isla markaana qayb ka noqon doonta dadaalada lagu xoreyn doono deegaanada gacanta ugu jira maamulkaasi. maanta ay taariikhdu tahay 19 bishii 2018 waxaan halka ku soo dhaweynaynaa saraakiil ka tirsanaan jirtay ciidanka asluubta ee taliska muxuu ahaayay Soomaalidiidka ee Hargeysa oo ku soo biiray ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee Puntland. saraakiishaas oo garatay muxuu ahaayay inay ku biiraan dalkooda iyo dadkooda kana tagaan Soomaalidiidka. waxay kaloo saraakiishaas yaqiinsadeen ama garwaaqsadeen taliska Soomaalidiidka dhibaatada ballaaran ee uu ku hayo gobolada Sool iyo Sanaag ee ku saabsan ku xadgudubta xuquuqda bini'aadanka, xoog u soogashada, lacag ku muquuninta, xabad ku muquuninta. sidaa aawadeed waxaanu idin leenahay ninka la yidhaaho Faarax Maxamed Warsame Maxamuud iyo ninka la yidhaaho Cabdullaahi Faarax Maxamed Warsame soo dhawaada. dalkiinii baad timaadeen, dadkiinii baad u timaadeen, dad Soomaalidnimada ogol baad u timaadeen. Jacfar Macalin Maxamed, Puntland TV, Garowe.